marka hore waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ummadda reer SSC ummadda reer Khaatumo waa salaamayaa bacda salaam waxaan doonayaa laba qodob oo yaryar halkan inaan ka soo jeediyo madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaan baaq dheer ugu dirannaa inuu ka hadlo faragelinta dawladda Ingiriisku ay ku hayso dalka Soomaaliya madaxweynaha intaas aan u gudbinana dalka mas'uul baad ka tahay mas'uuliyad baa ku saaran dawladaha shisheeye ee faragelinta ku haya dalka Soomaaliya madaxweyne waa in lala hadlaa oo loo jawaaba qodobka ku xiga Soomaaliya waa 16 milyan iyo 17 milyan inta u dhaxaysa waxay ku hadlaan af qura waxay ku hadlaan Soomaali waxay haystaan hal diin bay haystaan bismillahir rahmanir rahiim bismillahir rahmanir rahiim وبه نستعين على أمور الدين والدين ويد السلام يا أمة الصوماليات هل كان يسقطني شعور هذا موجينيسا كل موجينيسا إن يأسر وحبا الله لهين وحبا كان دحين دالكو كان دحيو لما تلي كرين لقول متلي كرين أسلم بانو نهاي لقول متلي كرين اعتراف بانو فاعلينا لقول متلي كرين وحانو نهاي قبل هذا وقوي taasi waa talabaad ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa annagu waxaan u taaganahay midnimada Soomaaliyeed midowga Soomaaliyeed turxaan la'aanta Soomaaliyeed dadka Soomaalidiidka ana waxba nagama dhaxeeyaan dawladda federaalka waxaan farayaa oo madaxweynaha farayaa ummadda tanbacadka ku taagan ee qadiyada Soomaaliyeed u taagan ee midnimada Soomaaliyeed u taagan waxaan doonaynaa inaad xuquuqda ay leeyihiin aad ogaatid qalbigaaga gelisid tan kale dawladaha waaweyn ee faragelinaya dawlada iyaga la siban oo xornimo leh oo madax bannaan ee Ingiriisku ka mid yahay waxaanu idin ka codsanaynaa taariikhdii hore ee 1897 ina dhex martay Ingiriis oo naga soo celin xabad baa ina dhex martay xabad baa naga dhaxaysa xaqayagii ma idaan bixin dalkii aad ku soo duusheen kama idaan bixin iyo gafkii aad gasheen waxba kama idaan bixin maanta inaad noogu dartaan SNM baanu aqoonsanaynaa waa gaf labaad annaga iyo Ingiriis xabadii naga dhaxaysa u baabilaabmaysa ubad adduunka saasaan u sheegay shanta qaaradood waxaan leeyahay SNM ha dhacdo isugu soo baxnay ee barnaamijkan aynu u soo baxnay wuxuu daaran yahay shacabweynaha Sool Sanaag iyo Cayn gaar ahaan maamulka Khaatumo ee gobolka Cayn iyo shacabkoodii waxay u soo bannaan baxeen oo ku mudaharaadayaan inaan Soomaalidiidku la matelin nana matali doonin ayna qusayna waxaanu leenahay Soomaaliya guul Soomaalidiidku ha dhaco Soomaalidiidku ha dhaco cadawga Soomaaliyeed ha jabo waxaalaala wixii qadiyada Soomaaliyeed ka soo horjeeda waxaanu leenahay ha dhaceen waxaanu u dhimanay Soomaalinimo waxaanu u dhiman doonaa Soomaalinimo horeyna waanu ugu dhimanay mustaqbalka dambena waanu u dhiman doonaa nama matala Muuse Bixiya waxa uu wataa dabadhilifku wataa miyayna matalaan Muuse Bixi miyayna matalaan gudoomiyaha baarlamaanku raqabadeenu Soomaali maaha سو خياسي كمنين سو خاتمة كمنين السلام الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صومالي هنولاتو صومالي هنولاتو من نمدا ومدة الصومالية هاتكاتو عدو قيدو هدعو waxaan halkan idinka soo gudbinaynaa walaalayaal ujeedada ku talagalka shirkeena kan banaanbaxa ah oo aynu ku muujinayno dhowr qodob marka ugu horeysa deegaamada reer SSC ee maamulka Khaatumo waxay ka mid yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya
labo waxay leeyihiin maamul goboleed u gaara oo la yidhaahdo khaatuma state of soomaaliya oo toos u hoos taga maamulka dawladda federaalka ah ee soomaaliya maamulka somalilan waa maamul qoys keliya uu leeyahay oo shanta qabiil ee dega gobollada waqooyi bay mid ka mida yihiin uma aanaan wakiilan raqabadayadana uma aanaan dhiiban inayna betelaan maamulka somalilan ha dhaco baanu leenahay lama metelo wakiilla nagama aha waxaannu aad iyo aad uga xunnahay dawladaha waaweyn ee dimuqraadiyadda sheeganaya ee xuquuqal insaanka inay ilaaliyaan sheeganaya in xubno ka mida golayaashooda baarlamaanka haba yaraadeene ay isku dayayaan inay kumannaan iyo boqolaal iyo malaayiin ummadeed oo soomaaliyeed ay duudsiyaan oo xuquuqdooda u diidaan dad ay lacago yaryar iyo dhaqaalo yar ka qaateenna ay ku taageeraan aad iyo aad baannu uga xunnahay waxaannu qaadan karnana maaha dawladda ingiriiska waxaannu leenahay idinma mateli karaan mana aha inay ka sii mid ahaadaan baarlamaanka dawladda UK inay ka sii mid ahaadaan sharaftiinna iyo jiritaankiinna iyo sumcadda aad caalamka ku leedihiin ayay wax ka beddelayaan oo xumaynayaan waxaan leenahay waa in laga saaraa golaha baarlamaanka ma istaahilaan inay magaca ingiriiska iyo dawladda ingiriiska ee ballaadhan afkooda iyaga oo dhaqaalo yar qaadanaya in ay ku lumiyaan oo ku ceebeeyaan ma qaadan karro idinkuna waa ceeb bay idinku tahay waa in laga noqdaa dadka reer somalilan ee shacabka ah waxaad mooddaa inay magudbayaal yihiin mar kasta oo maamulka jira ay caqabado siyaasadeed ku dhex yimaadaan oo ay dhibaatooyin ka hor yimaadaan bay waxay yidhahdaan aqoonsi baannu raadinaynaa waad ogaydeenoo kiiniyay tageen oo ay lahayeen waanna aqoonsanayaan waadna ogaydeen gini konakari bay tageen oo yidhaahdeen waanna aqoonsanayaan iminkana waxay u dhaceen xubnaha ingiriiska oo biidhi qaataa inay dhaqaala siiyaan oo malaayiin dollar ku qarash gareeyaan inay meelaha ka lobin gareeyaan aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan leenahay war marka siyaasaddu adkaato ee axsaabtiinnu isqabato ee khilaafad idin dhex maro miyaydaan arkin in waxa laydiin soo qaaday aqoonsiga lagu sheegaa inay markaasun tahay war waxba kama jiraan kariiri baa dhaqanaysaan kariiri baa dhaqanaysaan oo geel ka dhiganaysaan ma dhici doonto lana aqoonsan maayo midnimada soomaaliyana waa mid maamulka somalilan ha dhaco midnimada soomaaliyeed ha guulaysato ha la midoobo waxaannu leenahay dhammaan ummadda halkan isugu timi ee bacadka u tubani waxay shucuurtooda ku muujinayaan in aanay muxuu ahaa ay diyaar u yihiin midnimada ummadda soomaaliyeed jiritaankooda iyo dhismaha maamul goboleedkooda aad iyo aad baannu idiin salaamaynaa waxaannu leenahay war si lambarkii gaalkaysiiya war beeyey boodhkii war boodhkii meeye war boodhisi war isi war iisaw war ii qabo war waa ninka waa kaa war yaaya biiri qaate